السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بان إني سلام يا مع نرجينا يا عفمات فرحات يوناج. سيدا إلا السعودان سوماليدا عن براها بلشدة أصحاب تكون هاي وحا دور بلاد كهور دالك مصر لغو دابعي بوغا الصومال زوايا غير محكية oo daba socday labadii buug ee ka horeeyay januuban ma waraa safana oo sagar af carabiha iyo buugii guure buugaas oo hadda laga heli karo magaalooyin badan oo dalkeena kamid ah sida Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Jigjiga iyo Kismaayo. waxaan dhawaan insha Allah taala gaar ahaan maalinka Sabtida ee bishu ay tahay 9 Oktoobar 2021 aan xaflad kooban iyo saxiix ugu sameyn doona magaalada Istanbul. anaga oo soo sheegi doona goobta iyo goorta ay xafladu dhacayso. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in buugtaas la keenayo bulshadu marka ay gadato kharash ka soo xaroon doona aan ugu deeqi doono walaalaheen Soomaalidii laga soo raafay, laga soo qixiyay, laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood. arrintaas oo aad iyo aad noo damaqday Soomaalinimadana boog ku ah, ceeb ku ah, dhaawacday ayaa waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano daweynteeda iyo ugu yaraan inaan dadka ilowsiino dhibka iyo rafaadka iyo waxa soo gaari aan garab istaagno. awoodda aan leenahay waxa weeye inaan ku garab istaagno qalin, inaan ku garab istaagno wixii kale ee awooddu ay noo ogolaato. sidaa darteed buugga la soo bandhigi doono maalinka Sabtida ah kharashka ka soo xaroodo dhan insha Allah waxa loogu deeqi doonaa walaaladeen laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood ku rafaadsan hooyooyinka, caruurta, da'yarta, odayaasha, waayeelka ku rafaadsan magaalooyinkii ay imaadeen. nagala soo qaybgal gada buugga si aan walaalaheen u garab istaagno uguna dirno wax ku filan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.